meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkii xulka wararka ee toddobaadka ee Bulsha TV oo toddobaad walba aad ka daawan doontaan xiligan oo kale barnaamijkan daawadayaal waxaa si wada jira idinku daadihin doona anigoo Nimco Cumar Xuseen iyo waliba wariye Shucayb Maxamed Kaahin waxaana ku soo qaadan doonaa barnaamijkan daawadayaal toddobaadkaas wixii ugu ama qodobadii ugu xiisaha badnaas ee ka daawateen Bulsha TV war toddobaadkan qodobada aan idiin hayne ee barnaamijka xulka wararkana Shucayb maxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Mudane Cabdikariin Muuse Maal anshaxa mas'uuliyiinta wuxuu ku hadlay oo aan wax xaqiiqo ah hayn kagama hali doonay maxkamadan ku geyn doona hadal waxaan leeyahay ma walulatay maxay leeftaa qadadaanu ku karsanayno baka anaga sii dirsanaa sidoo kale soo waxa hadalkaasi jawaab ka bixiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Awdal Mudane Cabdikariin Muuse Maal inuu Master Ramaax isagoo martiya oo madaxtooyadii dhex jooga uu sugi kari waayay xafiiskiisa imanayo runtii dulqaadiri iyo salfadeed xukuumadani ku caan baxday u turjumaysa shacbiga Soomaaliland marwada waxaan oran lahaa gudoomiyaha Ramaax waa hasha geela cunta ee haddana cabaada xogayaha xisbiga mucaaradka wadani Booba Yuusuf Ducaale ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeeray mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga maxaafadka kulmiye haddii riidublaade dabada ku qarin lahayd dadna barasho uma hadin waa inoo goobaha codbixinta daawadayaal waxay haayeen qodobada hordhaca u ahaa barnaamijka xulka wararka toddobaadka bal Shucayb iyo qodobka uu hayo ee uu inoogu furi doono barnaamijka xulka wararka toddobaadka han weydiiyo Shucayb haye nimco mudooyinkii ugu dambeeyay waxa hadalay isdhaafsanay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Awdal iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax hadaladani ayaa waxa ay isku dhaafsanayeen miidiyaha gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Mudane Cabdikariin Muuse Maal ayaa hadallo waxa isku dhaafsanayeen miidiyaha waxaana hadalladaasi u dhacayeen sida tan gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa ka jawaabay eedeymo uu soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Awdal Mudane Cabdikariin Muuse Maal oo ku tilmaamay inay waxba kama jiraan yihiin eedeymahaasi gudoomiyaha Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo iska eedeymahaasi iska difaacaya ayaa waxa uu yiri mid ka baxsan anshaxa mas'uuliyiinta wuxuu ku hadlay oo aan wax xaqiiqo ah hayn kagama hali doonay maxkamadan ku geyn doona waxaan ugu baaqayaa xisbiyada qaranka inay dadka ay dhiganayaan gobolada u soo dirtaan dad mas'uuliyiin oo aqoontu ku hadli kara maaradad ma diidanin laakiin wuxuu qofku sheegay waa inay noqdaan wax xaqiiqo ku dhisan waa aqligiisa waa ninka bakiidi lacag buu barasaab ka qaatay hadal waxaan leeyahay ma walulatay maxay leeftaa qadadaanu ku karsanayno baka anaga sii dirsanaa maxaa yaala ma yarada uu leeyahay anaga kabna anaga ummadda wuxuu weydiinaa la soo heli maayaanu intaan 3 gobol baan barasaab ka hayo maayar 1 milyan oo shilin siiyay marka waxaan leeyahay runtii karaamadayda iyo sharaftaydu meel kaga dhacay aflagaado aan sal iyo baartoona lahayn bay ahayd haddaad sheegayso waxa xaqiiqadee boorama ka jira ama gobolka Awdal ka jira ama waxaan ka qabanay iyo waxa la yigmaday xilkaygiisaan uga soo baxayna ummadaad ka wareysan karto shalay ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Awdal Master Ramaax isagoo madaxtooyada jooga oo eedeymay soo mariyay hawada taasi runtii waxay tusaysay shacbiga Soomaaliland dulqaadiyarida xukuumadda gobolka iyo madaxweyne Siiraan iyo salfadeedka ay xukuumaddaasi caan ku tahay inuu Master Ramaax isagoo martiya oo madaxtooyadii dhex jooga uu sugi kari waayay xafiiskiisa imanayo runtii dulqaadiri iyo salfadeed xukuumadani ku caan baxday u turjumaysa shacbiga Soomaaliland marwada waxaan oran lahaa gudoomiyaha Ramaax waa hasha geela cunta ee haddana cabaada wuxuu hilmaansan yahay gudoomiyaha Ramaax inuu yahay mas'uul qaran mas'uul gobol tilmaan iyo dhaliila una waayeen ugu horeyn waxaan ka raali gelinayaa shacbiga xariirta ee goobta ee ku dhaqan degmada Baki ee gobolka Awdal hadalkii meel ka dhaca ahaa ee deelqaafka ahaa ee aan loo meel dayin ee uu barasaabka gobolka Awdal hawada u soo mariyay ee uu yiri marti soor male
dadka ku dhaqan degmada Baki aan qadadeeda iska bixiya waxaan leeyahay aad iyo aad baan xaal uga siinayaa dadka ku dhaqan degmada Baki hadalka meel ka dhaca ee aan qaban waxaan leeyahay gudoomiye Ramaax halkani waa halka Shiinaha u soo kireysateen si aad dhaqaale uga heshaan adiga xukuumadda aad ka tirsan tahayba marka ma aha meel qado loo soo qaato degmada Baki waxa kale oo leeyahay Ramaax malaha waanad ogeyn degmada Baki waa degmada ugu barwaaqada badan Somaliland waxay leedahay degmada Baki dhul beereedka ugu khayraadka badan Somaliland waxay leedahay macdanaha ugu badan Somaliland waa degmada ay ku yeelaan buuraha ugu qaalisan ee macdanta ugu badan ee Somaliland ilaa imika inta looga hay ku duugan tahay waa degmada ay ku taala buurta caanka noqotay ee xukuumadda madaxweyne Siinaay ay u soo kireysatay shirkadaha waaweyn ee Shiinaha ee Siimoodi waa degmo leh dhul beereedyo aad iyo aad u ballaaran waa degmo leh durdurro anguringu iyo jiilal marka gudoomiye Ramaax hadalkaasi oo u meeldayin oo ku duray degmada Baki waan ka raali gelinayna xaal lama ka siinana waxaana weeyaan meel khadhicii labaad ee inta uu gobolka ka yahay barasaabka oo aan sanad gaadhin uu degmada Baki u maraya hawada waxa tan ka horeeyay hadalkan ka cuslaa ka naxdin iyo dhiilaba badnaa kana dhibaato badnaa oo gudoomiye Ramaax u soo jeediyay dadweynaha ku dhaqan degmada Baki oo ahaa inay tahay saldhig argagixiso degmada Baki taasina waxaan leenahay tii oo taagan oo nabadgelyadii gobolka uu isagu ka yahay mas'uulka oo nabadgelyo darro u soo jiidayo malaha barasaab Ramaax waxaan ku tilmaami lahaa ninkii juxa ee geedka laantii isagu uu saarnaa gudinta ku goynayay gobolkan malaha ma oga isagu inuu ka yahay barasaab waxa kale leeyahay gudoomiye Ramaax saaxiib hadad dhaliisha iyo tilmaanta diidayso oo aad saa uga cabaadayso xilka qaranka banee markaas aad nabadgeliye intaad si xilka qaranka hayso tusmeyn iyo tilmaan naga waayimaysid Soomaalidu waxay tiraahdaa nin xil qaaday eed qaad haddana soo daadego hadalku shalay barasaab Ramaax ka lahaa warbaahinta barasaab Ramaax muddada gobolka joogay sanadka ka yar musuq baahsan buu runtii kula kacay gobolka Awdal waxaana la yiri meed maxaa u dambeeyay ka la siisido haddaan wax ka iftiimiyo musuqyadii ballaarnaa ee barasaab Ramaax kula kacay gobolka Awdal intuu barasaabka ka ahaa in yaro hoga tusaaleyn aan ka soo qaato waxa kamid ahayd muddadii barasaab gobolka yimiday barasaab Ramaax wuxuu maayarkan ka horeeyay أو سي جاري لانجروسلا مركو جاري ما يركي سي مركو ما جاري أن شيء هين ولا مركي سعداني هين جاري مركو ما يركي كذا على حلقة ما يركي كلو سي ما يركي كلو مركها كوري وين بحساب قدر العقد أردن سديد تمكن أو دولار أو جاري العقد يسوتها هاي ما يركب حلقة أو جاري كوري تشين واحد مدان كبدنا يشان بلاد كهر ضد بابورته يقارن أي أدي بيقولن دونا لا مركب جاري يسوح عشان يكون تمكن وحنا كسي سديد تمكن أو دولار وقت جالسنا لا مركب سلا برا صور عفيف بوها سومالي لأنه ولا جود دركسين هلا جروس سديد تمكن أو دولار لسياي إنه نشرين أو بالية أو سكنة وليبة تحسين وحلقة صار العقد تحسين قسنا دي دولة هوسة أو أرنتي قرشها وجرين ميزانية سندات كلا بدو كنا شنية تمانكا برسافر رمح جارية مال الله مالك كان لما جرانينين ملهين بوجي جارية سيل كالوريجين تلمسمين وحكو خص بمايك جارية سين ستيت تمكن أدارك قسنا الدولة دوجا صاروا العقد هنا برسافر محساس وكو قاطي جارية لانجروس ستيت تمكن أدارك قسنا شنية كنت لنا بركيسي هنا سومالي لان ماشى لقاسيو وحنو دين دونا شعبية وحكلون تصالوا سوق قادنا يا جاري شاولا iskarrogadan camuudda ku gurta iskarrogooyinka cagaftan iskarrogooyinka ku gurta camuudda oo dawladda hoose barasaab Ramaax keenay muddo dhaweyd markuu keenay barasaab Ramaax iskarrogada wuxuu sheegay golaha deegaanka iyo maayarkaba inay tahay deeq uga timid madaxtooyada Somaliland runtii deeqdaasi ay dawladda hoose la wareegtay ee madaxtooyada uga timiday ee barasaab Ramaax uu sheegay muddo yar ka bacdi wuxuu hadana u sheegay inuu lacagtaasi la leeyahay oo deyn ay tahay oo uu ka soo qaaday macradku yaala Hargeysa gaariga dawladda hoose ay u baahnayd ma ahayn shaawal ee waxa ka tarabilar tan cagaftan cirfiyada aynu naqaano ee xagga dambana ciidiyaha kula xagga horena wax ku qaada ee weyn ee cus maalin dhawid oo la dhisay guriga martida Boorama way ku jabtay bahasha cagaftaasi qiimaha lacagta uu barasaab Ramaax soo siiyayna waxay ahayd lacag hor dhaafaysa $51,000 qiimaheega saxda Hargeysa bahashaas ay ku taalayna markaan la xiriirnay macradada Hargeysa ku yaala waxaana loo sheegay $30,000 $20,000 ee halku meeriye barasaab Ramaax isaga sheegi doona waxa kale oo jeclaan lahayn aan ka hadlo oo aan u sheego shacbiga ku dhaqan gobolka Awdal barasaab Ramaax wuxuu hore barasaab uga soo noqday 3 gobol barasaabkii gobolka Saaxil barasaabkii gobolka Sanaag imikana barasaab gobolka Awdal waa barasaab tahriiba oo ka soo tahriibay bari waxay reer ceeriga bay yiraahdeen hadal dhaxal gala maalintii barasaab Ramaax
laga soo bedelayay gobolka Sanaag waxay yiraahdeen madaxweyne ilaahay baanu kugu dhaarinay ummad islaama kana hawgeenin madaxweynihii Soomaaliland inagu inoo keenay barasaab Ramax malaha islaam dad ku dhaqan gobolka Awdal xogayaha xisbiga mucaaradka wadani Booba Yuusuf Ducaale ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeeray mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga ee kulmiye Shacaybo Booba iyo hadalka iyo jawaabtiisi ayaynu wada daawanaynaa xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani Booba Yuusuf Ducaale ayaa ka jawaabay eedeymaha ay soo jeediyeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Booba Yuusuf Ducaale oo eedeymahaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yiri war-saxaafadeed uu soo saaray xisbiga wadani ka jawaabaya aflagaadooyin ay noo geysteen niman xelalaya weli way hadlayaan 9 bishan December 2015 ayaa xaflad lagu qabtay hotelka Imperial xafladaas waxaa lagu soo bandhigay buug baadisoo looga dhigay tirajadii rumowday oo laga hadlayay guulihii nololeed ee mudane Axmed Maxamuud Siiraayo waxba ku tiyaali maayo oo dhalinyarada qoraalka oo aan baxday niyad jabin maayo saaxiibkay Mujaahid Axmedna wax togan iyo wax toban wixii uu ka tagay taariikhda ayaa qori doonta annaguna waxaanu ka mid nahay kuwa wax ka qori doona ee weliba xogaalka habeenkaas qaaraan halgankii huleysnaa daba hurin mucaaradnimadii kulmiyana aan meer sutalin oo ay intii timid saacadii reebanaayo xilliyadii wax saareenka ayaa laga fadhiilaa talaxumadooda iyo tamar daraantooda magaalka berbera oo shaqeynaya oo dal iyo dad la mahadiyay ayay xukuumaddu $5 milyan ayaan gelinay sidii ayuu ku xidhmay sayradana ku jooga sida halbowlayaal dhaqaale oo kale leeyahay madaarka Hargeysana $10 milyan ayaa galay hadda madaarka Jigjiga ee Wiilwaal oo lacag ka yari gashay ayaa si walba uga dhig iyo dhaqaalaha roon haddii aan taasi jirin cidii dhaqaalahaas maamuleysay ummadda ka qaanbaxdo sidoo kale waxa uu xukuumadda ku dhaliilay inay iibiyeen dhulal hantida dawladda ah daartii ku soo noqo wasaaradda duulista xarunta oo ahaan jirtay ee kibirkii seereelka loo iibiyay ninkii iibsaday wuxuu ka macaashay magaalo dhan oo ganacsi oo intaasoo albaab ka furan tahay sidaas ayay weliba ugu hadhay inuu intaasoo fooq sii saara xukuumaddu waxay ka macaashday daar quraarada oo aan weliba muraayad ahayn oo madaarka ku taal muraayadda iyo quraaraduna waa ay kala qiimo badan yihiin saddexankaasiba waa taalooyin u taagan hal abuur la'aanta iyo dhugma la'aanta xukuumadda tooxa iyo faanka meel walba la taagan waxaa la yidhi baryihii nidaamkii militariga dalka ka talin jiray ayaa nin la yidhaahdo dhagoolka loo soo bedelay customka loo yaqaano kii aad yaabto diifta iyo dareeyada korkiisa ka muuqata ayuu loo yaqaadiyay dhowr bilood markii uu joogay ayuu dhoorgooyay boorama ayuu dalxiis ku yimid waxaa lagu murmay inuu dhagoolkii yahay kale waa ninkii oo cadaaday oo calooleystay oo quraarad cadal ku farxasha oo biyo saabuunba ay bari hore kala dhaqaaqeen waxa lagu murmay waa dhagoolkii iyo maaha mufakarkeena cawaala caynaan diidan ayaa soo dhex joogsaday dadkii oo yidhi waa isagii oo qarjamta ayuu ku badhaaday kaadibkii asanan ee soo halgamay kaadibkii kulmiye ee mucaaridka ahaa intuba waa ku teelteel xukuumaddan aan la mahadin daliilkeedu wuxuu yahay wasaaradda arrimaha gudaha ee udub rasaysan tahay abwaanka weyn maxamed aadan dacar ayaa deemaydiisii wuxuu ku yidhi haddii riidublaabay dabaday ku qarin lahayd dadna barasha uma hadhin waa inoo goobaha codbixinta hogaanka ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo sidoo kale qaar kamid ah xubnaha wasiirada Nimcoy ayaa waxa ay yeesheen kulan kadib markii hogaanka ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ay in badan ka hadleen tacadiyo loo geystay warbaahinta isla markaana xukuumadda Soomaaliland ay xidhiidhisay kulanka iyo qodobada ka soo baxay balaan eegno kulankan ka soo qayb galeen wasiirka madaxtooyada mudane maxamuud xaashi cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wasiiru dowlaha madaxtooyada barasaabada gobolada iyo ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay lagana dooday khilaafaadka u dhaxeeya warbaahinta madaxa bannaan iyo saxaafadda waxaana ururka Soolja soo bandhigeen tacadiyada tirada badan ee loo geystay warbaahinta halka sidoo kale laga hadlay khaladaadka laga galo xukuumadda barasaabada gobolada oo madasha kaga dooday in wariyaashu inta badan khaladaad iyo gaf
ka galaan ayaa waxa uu gudoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadan Xaaji Cali uu sheegay inaanay sharci ahayn in barasaabada wariyaasha xidhxidhaan iyagoo waaran maxkamadeed haysan. wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi iyo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Jaamac Xuuto oo markii kulankaasi soo dhamaaday warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka warameen nuxurka kulankaasi dhex maray ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja iyo xukuumadda maadaama uu ahaa kulan muqtabiyaashu dibad joog ka ahaayeen waxaana yidhaahdeen suxufigu ma laha xuquuq aan xad lahayn wuxuu leeyahay xuquuqdiisu meel bay ka bilaabantaa meel waa ku dhamaataa muwaadinka kale ee uu saamaynta ku leeyahay noloshiisana xuquuq buu leeyahay xuquuqdiisuna waxay ka bilaabantaa halka kaasi ku dhammaato meel way ku dhammaataa waajibaad baa saaran waxaa waajib ah iskaashi guud in qarankeennu si aynu horumarino waa in xukuumaddeennu aynu horumarinaa waa in private sectorkeenna la horumariyaa lahaanshaheena gaar ahaaneed waa in saxaafadduna ay horumartaa waxaanu ka shaqaynaynaa sidii saxaafadda loo kobcin lahaa baahiyahooda loo eegi lahaa aqoontooda loo kordhin lahaa dhibaatooyinka ugu badan ee xukuumaddu ay aragtay isha ku haysa waxaa ka mid ah saxaafaddii madaxa bannaanayd oo ay ku soo bateen dad aan aqoon lahayn oo yaryar oo waa xirfad weeye saxaafaddu muhiimaddii u isticmaalaya si qalloocan waxa weeyaan waajibaadka saaran baa laga doonayaa ee hadday tahay amniga qaranka ilaalinta qarannimada iyo amniga iyo nabadgelyada iyo sumcadda qarankan ay kow ka tahay saxaafadda xukuumaddu kama rabto inay guulwadayso waxaanu ka doonaynaa inay dhexdhexaad noqoto runtii kulankan wuxuu ahaa kulan weyn oo taariikhiya runtii oo aan in muddo ah qabsoomin waxaan u dawo ka yahay runtii dhibaatooyin fara badan iyo caqabado fara badan oo ay saxaafaddu tirsanaysay in lagu lafaguro sidoo kalena bahda garsoorka iyo xukuumaddu laftooda iyaguna cabashooyin badan oo sugaya runtii fursadan oo kale ah in iyaguna maanta halkan ku soo bandhigeen waxaanu isla garanay runtii waxyaabihii faraha badnaa ee saxaafadan ka cabanaynay in maanta xukuumaddu u tafaaciidato runtii in la xaliyo bahda saxaafadna runtii maanta waxa halka ka soo baxay eedo fara badan oo loo soo jeediyay in bahda saxaafadduna markaa runtii ay ku dhaqanto oo ay ajiibto oo ay dhinacooda wixii caqabad kaga imanaya runtii hadday noqoto xukuumadda hadday noqoto dadweynaha hadday noqoto garsoorka intaba runtii inay wax ka qabato wax ka bedesho marka runtii waxaan u arkaa kulankan oo ay Solja in badan soo qabanqaabinaysa kulamo badan oo dambana la samayn doono haddii la hayraa inuu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinkii faraha badnaa ee jiray aynu ka cabanaynay maxaan ku dhaday la xiriira dhinaca saxaafadda guud ahaan arrimaha ay soo bandhigeen aad bay u soo bandhigeen ururka suxufiyiintu xukuumadda Soomaaliland iyo garsoorkuna qayb waliba intii kaga aadanayd waxa ay ka bixiyeen jawaab maxaan ku dhaday shaafiya oo aad iyo aad u wanaagsan oo maxaan ku dhaday waxtar leh waxa kale oo maxaan ku dhaday dhinaca kale maxaan ku dhaday yimi saa gudoomiyuhu sheegay in saxaafadda lafteeda dhaliilaha iyadu ay leedahay laftigeeda la soo bandhigo laga wada hadlo la lafaguro ururku ka garaabo maxaan ku dhaday dhaliilaha jira qaar badan oo dhaliilaha kamid ah ururka suxufiyiinta laftooda uu soo bandhigo saxaafaddu ay leedahay la iskaga garaabo labada dhinacba wixii maxaan ku dhahdayay in dhaliil iyo galdaloolo ay jiray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Ciro ayaa lagu soo dhaweeyay Nimco ee magaalada Hargeysa isagoo martiqaad ka helay magaalada Jigjiga isla markaana ku maqnaa in muddo ah bal Cabdiraxmaan iyo sida loo soo dhaweeyay aan eegno gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isagoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa dalka Jigjiga oo ka helay martiqaad waxa safarka iyagu daaranaa martiqaad rasmi ah oo ka helay dawladda Itoobiya oo ku saabsan in ka qayb galno maalinta shucuubta iyo qoomiyadaha ee dalka Itoobiya oo sanadkan lagu qabtay kililka Gambela magaalada Gambela xafladaas oo xaflad sanadeed aad loo maamuuso oo ay ka soo qayb galaan madaxda dawladda federaalka Itoobiya iyo madaxda gobolkuba iyo madaxda kililaduba waxa martigelintaana lagu siiyay maamuus aad u sareeyay inta kadib intii aan waddanka ku sugnayn dalka Itoobiya waxaan la kulannay madax ka tirsan dawladda federaalka Itoobiya waxaan kaloo la kulannay safaaradaha fadhigoodu yahay magaalada Addis Ababa qaar ka mid ah oo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Mareykanku waxaan kaloo martiqaad aanu ku tagnay kililka dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Jigjiga halkaas aanu sii xoojinaynay cilaaqaadka soke ee dhow ee wanaagsan ee ka dhaxeeya
kililka iyo jamhuuriyadda Somaliland waxaan isleenahay safarkaasi safar sii xoojinayay cilaaqaadka labada dal hadday tahay Itoobiya iyo hadday tahay kililada ayuu ahaa marka nabadqabna waa ku soo noqonnay mas'uuliyiinta aanu la kulannay waddanka waan uga xogaal warranay hadday tahay duruufaha jira hadday tahay doorashooyinka hadday tahay diiwaangelinta hadday tahay abaaraha ka jira dalka dowladda Soomaaliya Itoobiya sababtii aanu tagay waan sheegay waxaanu ka helnay martiqaad rasmi ah oo dowladda Itoobiya noo fidisay waxaanu kala hadlayna waanu sheegnay oo cilaaqaadka wanaajinta Somaliland iyo Itoobiya aan kala hadalno mudane gudoomiye magacaygu maxay Subakeyle waxaan ka socdaa telefishinka caalamiga Star dhawaan warbaahintu waxay xoog u hadalhaysay astaanta ama calanka xisbigaaga gudoomiye ku-xigeenka xisbigaaga Axmed Muumin Seedo waraysi siinaya mid kamid ah telefishinada Somaliland wuxuu sheegay in astaanta ku doorateen midabkooda dumarku jecel yihiin arintaasi shacbiga waxay ka dhex abuurtay hadalhayn weyn saxaafaduna xoog bay u falanqeynaysaa taariikh dheer buu soo maray calanka sidii loo doortay iyo sidii magaca loo doortayba xisbiga guud iyo dibadba taageerayaashiisa waa la weydiiyey in ka badan 60 magac baa la soo diray waxa la soo diray in ka badan 30 calan marka waxa lagu doortay process dimuqraadi ah shacaybo muddo Soomaaliland waxa ku soo badanayay taliyaasha la dilay ama askarta sida qaldan wax u dilaysa shalay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil waxa lagu dilay taliyihii ciidanka ama taliyihii birmadka ee magaalada Berbera sidoo kale waxa taxsi u diray taliyaha ciidanka Somaliland Sareeye Guuto Cabdullaahi Fadan Iimaan dawdayaashu waxay u sii deyn doonaa dhacdadiisa u dhacday iyo waliba taxsidu dirayay taliyaha ciidanka Somaliland Cabdullaahi Fadan Iimaan hana la daawada magaalada Berbera ee caasimada gobolka Saaxil waxa maanta lagu dilay taliyihii ciidanka booliska ee birmadka ee gobolkaasi mas'uuliyiinta Somaliland wax faahfaahin kama aanay bixin sababta dilka sargaalkaasi booliska ka tirsanaa inkastoo la sheegay in la qabtay ninkii dilay oo isaguna ka tirsanaa ciidanka uu madaxa u ahaa taliyihii la dilay taliyaha oo magaciisa lagu sheegay Aadan Guuleed ayaa askari ka tirsan isla ciidanka birmadku rasaas ku furay albaabka hore ee saldhigga ciidanka gudoomiyaha gobolkaasi Saaxil ayaa dilka sargaalkaasi xaqiijiyay lama oga ilaa haatan sababta askarigaasi u dilay taliyihiisa waxaana la sheegayaa in la qabtay oo haatan loo taxaabay xabsiga dhexe ee dalka lama oga sababta askarigan u dilay taliyihiisa waxaana la sheegayaa in la qabtay askarigaasi oo hadda uu ku xiran yahay saldhigga magaalada Berbera inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun saaka waxa magaalada Berbera ka dhacay falkaasoo lagu dilay sarkaal Allahu naxariiso marxuum Aadan Guuleed Daahir waxaana toogtay askarigiina isla markiiba ciidanka booliisku gacanta lagu dhigay waxaana la marinayaa sharciga si degdega waxaan isla markii falku dhacay halkan ka diray taliyaheenkii ciidanka booliiska Sareeye Guuto Cabdiraxmaan Fooxle iyo taliyaheenkii CID-da si ay hawsha u dadajiyaan sidoo kale waxaanu halkan iyana diyaarinaynaa in waajibkiisa la mariyo gacan ku dhiglahaas ku kacay falka foosha xun leh inta hadaynu daawadaal kaga nimaadno qodobkaasi geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdi ballaaran oo horkacaya ayaa nimcay waxa ay gurigiisa ku soo booqdeen xildhibaan Cabdi Waraabe oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay gurigiisa isla markaana loo qaaday dalka dibadiisa maanta shaad bal madaxweynaha iyo booqashadiisaasi iyo say u dhacday madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa gurigiisa ku booqday xildhibaan Xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdi Waraabe oo kamid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay xanuun u jiifay gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa xildhibaan Xaaji Cabdikariin Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe ayaa sidoo kale kamid ah mudanayaasha waaweyn ee Soomaaliland qayb lixaadan ka soo qaatay dhismihii qaranimada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa markii ay booqdeen waxa Ilaahay uga baryeen inuu caafimaad sare cana siiyo iyagoo sidoo kalena sheegay inay ku dadaali doonaan caafimaadkiisa waayahay socodkii dhexmarkana badi wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo warbaahinta kula hadlay halkaasi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Ilaahay uga baryeen Xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdi Waraabe inuu caafimaad sare cana siiyo waxaana uu yidhi xildhibaan Xaaji Cabdikariin Xuseen oo taariikhda Soomaaliland qiimo weyn ugu fadhiya waxa uu maanta gurigiisa ugu ku soo booqday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo haatanna waxaanu ku sugannahay guriga
oo aanu xaajigii oo sariirta dhulyaala oo xanuunsanaya ugu nimi wasiiro tiro badan iyo xukuumadduna way ku weelinayaan safarka ujeeddada madaxweynuhu guriga u yimidna waa booqashada bukaanka iyo xanuunka loogu soo sheegay xaaji cabdikariin xuseen cabdiwaraabe madaxweynuhu xaajiga wuxuu hore ugu dadaalay caafimaadkiisa wixii ku baxay oo uu arkayo madaxweynuhu waajib saarnaana wuu gutay iminkana saaka wuxuu ballan qaaday madaxweynuhu mood iyo noolba guda iyo dabadba inuu xaaji cabdi caafimaadkiisa ku dadaali doono ilaahayna wuxuu ka baryey inuu la qabto waxaa ku sugan mas-uuliyiin tiro badan goobta mas-uuliyiintaasi oo madaxweynuhu hogaaminaya dhammaantoodoo kamarada ka arkaysaan waxa ay xaaji cabdikariin madaxweynaha ku lamaanaayeen safarkan booqashada socdaalkan booqashada ah waanay u duceeyeen ilaahayna waxaanu uga baryaynaa inuu caafimaadkiisii oo taama u soo celiyo qiimo fara badan buu bulshada somalilan iyo nabaddaba ugu fadhiyaa xikmad badan oo laga dhaxlay iyo taariikh badan oo uu sameeyeyna waa ay jirtaa madaxweynuhuna isagoo taa ku calool haya waxa uu mar kale iyo mar kaleba ilaahay ka baryayaa dhammaanteenna uu leeyahay nuugu ducayno xaaji cabdikariin caafimaadkiisa inuu soo celiyo isaga iyo inta kale ee muslimiinta ee somalilan dariska ee xanuunsanaysa daawada qodobkaasi waxa uu soo afmeeray barnaamijkan xulka warka toddobaadka oo aan ku soo qaadanay qodobadii ugu xisaab badnaa ee toddobaadkan ka dhacay dalka iyo dibadiisaba barnaamijka waxaa si wada jir idinla socodsiinaya anigoo ah Shucayb Maxamed Kaanya sidoo kale Nimco Cumar Xuseen barnaamijka waxaa qayb lixaad ka qaatay Siraaji Cabdi Xasan noo fadhiyay dhanka kamarada habeynta iyo hagaajinta qurxinta sidoo kale waa injineer Siraaji barnaamijkan barnaamij la mid ah waa aniga Nimco inaga tagayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh